kulankan oo ahaa mid lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali iyo wafdigu hogaaminayo dhawaan soo gaaray magaalada Nairobi ayaa waxa soo qaban qaabiyay safiirka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo. kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya aqoon-yahano waxgarad haween iyo qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya. wareen waxa kulanka ka hadlay safiirka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya oo fadhiya dalkani Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo isagoo wafdiga ra'iisul wasaaraha warbixin ka siiyay xaaladda Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo dadaalada ay safaarada Soomaaliya ku leedahay dalkani Kenya ay wado. halkan waxa soo istaagay soo dhaweeyay wasaaraha laakiin waxaan rabaa wasaaraha inaan u sheego inay maanta ay qorshaha in lagu kulmasli laakiin shirkan u dheeraad awgeed aan ku shir weyno isli laakiin waxaan ballan qaadaynaa insha Allah taala in marka dambe uu wasaaraha yimaado in jarada Soomaaliyeed ee degan Nairobi uu kula kulmi doono xaafadda isli haduu la yiraahdo. mid kale ra'iisul wasaare maalmahan waxa socdeen operationo ka jiray wadan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi shalay waxa la kulmay jarada Soomaaliyeed xaafadda Islaam kula kulmay waan la hadlay u sheegay in dowladda ku-meel gaarka ay diyaar u tahay inay difaacdo aan kala hadlay dowladda Kenya kala hadlay in aan la abaarin dadka Soomaaliyeed oo jooga anigoo aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed halka degan ay aan dhigi karo badankooda ama aan dhigi karo boqolkiiba 99.9 ay yihiin dad amniga dhowra dad sharciga ilaaliyo shalaytan ay ballan qaadeen inay nagala shaqeyn doonaan hadana safaaradda iyo dowladda Kenya inay iska soo saaraan dadka yar oo aan dhigi karo aad ku yar oo mataqaana ku dhex jira ama nabadda nacab inay soo saaraan. ra'iisul wasaaraha dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali oo dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa ugu horreyn u mahad celiyay dadkii ka soo qayb galay kulanka iyo waliba kuwii isku holay in ay kulankan soo qaban qaabiyaan. ra'iisul wasaaraha ayaa soo hadal qaaday xaaladii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya isagoo sheegay in magaalada Muqdisho maanta 90% ay gacanta ku hayso dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii 11 qodob ka koobnaa oo ay wada gaareen dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo waliba dowladda Kenya. hadda imaatinkii aan la kulmay aniga iyo wasiirada iyo dhigiisa kale waxaan ka wada hadalnay sidii la saakaashan lahaa cadawgaas aan wada leenahay oo ah shabaab anu waa garan karaa yani dhaqaalayahan ahaan dhibta ay u geysatay shabaab Kenya sababtoo ah Kenya waa wadan dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay ilaa xad qaarkiis sector weyn weeye tourismku waxay ii sheegeen markii dhowr jeer laga qafaashay Lamu dad ajnabi ah in dhulka xeebta oo dhan hotel reservationski 90% la kasal gareeyay marka dib ay ku hayeen kul anaga dibta ay nagu hayeen waan naqaanay always nagu hayeen deewaati nimankaan muddo dul fadhiyeen oo dhibaatada ugu daran Soomaaliya ku hayaan laakiin dibta haddana way Kenya way soo kartay marka hadday soo kartayna marka inay iska difaacaan waa laga maarmaan bay ilaa tahay marka cadawgaas aan wada leenahay oo anagana cadawga noo ah iyagana u ah inaanu meel uga soo wada jeesano inaan la dagaalano laakiin la dagaalankaasi hoggaankiisa ay leedahay TFG in ciidamada TFG ay leader role ka leeyihiin Kenya wixii ay naga caawiso ay tahay supportive role ay tahay waa ku heshiinay waxaan ku heshiinay in la dhiso sida communique ku cad arki doontaan in la sameeyo guddi wada jir ah oo wasiirada dawladeena iyo wasiirada dawladooda oo يعني 24/7 أفرلاتن ساعة يعني ولا شقية information كيس دافسنا حرير شوكتا سمية هدي الله بحضنا السوي ما هذا إسركه مرنا كل محمر مرنا كل من نيروبي دي لهيرات كان ولا شقية. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waxa uu baaq u jeediyay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya. barnaamijka kuna marka inaanu ilaalino dadkan iyo dalkan aan ku noolahay inaan ilaalino loo baahan yahay waxa loo baahan yahay noqotaan good ambassadors oo marka qof Soomaali meeshu joogo leeyahay dadka Soomaaliyeed dad wanaagsan weeye dad laaluushka necab weeye dad dowladnimada jecel weeye in la yiraahdo ayaan u baahanaa oo taa laftigeeda magaciisa iyo sumcadii Soomaalinimada laftigeeda la dhowro la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay
تنافرات صدق قدام كجبنا وحويه هذا أنت إن ماشان شوكتا أو نبت جليادة يسكيورتيجا ينقالها يهرمرك هيستانا ده أنت الصومالية شوكتا دبعت تسنيد أو حالات يا قاعدة يا معلوش يا أبارتو أي دلوتينا إننا إلاون kulankan ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali gaas oo la qaatay Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi caasimadda dalkani Kenya ayaa imaanaya xilli dadka Soomaaliyeed ay dhagaha u taagayaan siyaasadaha imika ka jira dalka gaar ahaan ciidamada dalkani Kenya ay galeen gudaha dalka Soomaaliya taasina ay keentay inqilaaf uu ka soo dhex cusboonaada madaxda ugu sareysa dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Gutaale telefishinka Royal TV magaalada Nairobi